Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb gashay munaasabad loogu dabaaldegayay sanad guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ururka samafalka ee Danwadaag. Mas'uuliyiintii ka qayb gashay munaasabadan shalay ka dhacday magaalada tan Muqdisho waxaa ka mid ah gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyo Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ah gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho ayaa ururka Danwadaag ku amaanay kaalinta muuqata ay ka qaateen u gargaaridda bulshada Soomaaliyeed. marka dhalinyaro waxaan idinku waaninayaa aqoontiina badiya siyaasaddu qaybaad ka qaadan kartiin laakiin dawlad wada karaani adduunyada ma joogta leeyahay dad kulli wada rabo inay baarlamaan wada galaan ama wasiiro wada noqdaan ama madaxweynayaal wada noqdaan adduunyada lama sheegin idinkan isqaybiya oo noqda dad qaybta wadanka siyaasadda dhinac ka gala dhinacna wadanka dhismihiisii door ka qaata. Danwadaag runtii inta yartahay ay jireen inta anigu aan ka arkay dad ay daacad ka tahay waxqabadkooda ay ahaayeen maxaa yeelay xoogooda markay xoolo waayeen xoogooda ay gelinayeen inay dhismooyinka ka qayb qaataan masaajiday wax ka dhisayeen aan arkayay meelihii madaaxiftii makaatibtii wax ka dhisayeen kutubo quraan intay aruureen ilaa 600 oo masaaxif quraan ah ayay intay urureen waxay geeyeen baadiyaha markaasay dugsiyadii masaaxif u qaybiyeen ilmo yar kaan haysan marka waa dhalinyaro sidaa dadaalkooda u yahay dadkay ciidsiiyeen ilmihii barakacayaashii masaakiintu waan wada arkaynay waxaan leenahay Danwadaag ha noolaato. Yuusuf Diiriye oo ah gudoomiyaha guddiga abaabulka iyo wacyigelinta qaranka iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka Banaadir ayaa ururka Danwadaag ku dhiirigeliyay in ay sii wadaan dadaalada ay u gargaarayaan bulshada Soomaaliyeed ee u baahan in la caawiyo. waxaan idinku bogaadinayaa niyadda iyo qalbiga iyo inaad maskaxdiina aad ka shaqayseen inaad noqotaan urur isu tagay oo misna wax qabanaya. marka waxaad ogaataan urur dhalinyaro macnaha uu leeyahay waxay tahay maahan urur dhalinyaro oo lacag ku shaqeeyo mushaar qaata maaha. urur dhalinyaro mar walba waa urur si mutadawacnimo u shaqeeyo siyaasadiisa iyo policy-giisana ay tahay u gargaaridda iyo garab istaaga bulshada Soomaaliyeed. gudoomiyaha ururka Danwadaag Xudayfa Cabdiraxmaan Xasan ayaa madasha munaasabada ay ka socotay ka sheegay in ururka Danwadaag mar waliba uu u taagan yahay sidii loo caawin lahaa loona garab istaagi lahaa dadka maatada ah ee u baahan in la garab istaago. ujeedooyinkii ugu waaweynaa ee ururka Danwadaag loo aasaasay waa wacyigelinta ummadda gaar ahaan dhalinyarada. wacyigelinta bulshada waa laga maarmaan meel kasta iyo meel kasta. ujeedada labaad ee Danwadaag loo aasaasay waxa weeyaan soo saarista jiil u tababaran gudashada howlaha danta guud ee ummadda ka dhaxayso. marxaladaha Danwadaag soo maray waxaa ka mid ah Danwadaag waxay soo martay marxalado kala duwan oo isugu jira guulo iyo caqabado balse Ilaahay mahadii ugu dambeyn caqabadihii waan ka guuleysanay. Axmed Cabdi Cadaawe, idaacadda Tusmo iyo TV-ga CNN magaalada Muqdisho.